بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصوماليات وحنك سلامنا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام ما أنت وحا كلن اسكو يمد odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka kasoo jeeda si markaaseed ay ugu munaaqashoodaan arrimaha ka socda jubbooyinka iyo sida looga baahan yahay in looga samatabaxo ayaa kulankaas iskugu yimaadeen. Shirkaasi waxaa ugu horeen oo noo furi doona oo ka hadli doona si kooban ogaas Aweeshe Xuseen Honero ogaaska guud ee jubbooyinka insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدا هذا الهردع على الشيء ما أنت وبيشو على وطني الله بيش أفراد لو كن يلا وطن وهاي سوي من حفيز كجاركا وجاسكا جبويكا وهانا قهلين qaabka iyo fiicnaanta sida looga gudbi lahaa dhibaatooyinka hadda ka taagan jubbooyinka waxaana iskugu yimid beelaha dega jubbooyinka gaar ahaan beelaha Jaraweyne iyo beelaha Direed ay iskugu yimaadeen waxaana runtii ay ka munaaqashadeen sida qaabka looga bixi lahaa iyo dagaalka dowladda wadana ay ku taageerayaan ilaalinta iyo difaaca xuduudaha ay leeyihiin waxaana leenahay ciidamada hooga dalka ilaahay ha guuleeyo isfaalo fiican oo rajo fiican leh ayay nooga muujiyeen insha allahu tacaala iyo arrimo kale oo aan isleenahay deegaanka ayaa u roon ayaanu meeshaas ka hadalnay insha allah fulinteedana mar dhow ayaa la arki doonaa waxaan u rajeynaynaa insha allahu reer maxaa la yidhaahdaa jubbooyinka inay midoobaan midnimo ka shaqeeyaan insha allahu tacaala sida ay ugaga bixi lahaayeen dhibaatooyinka hadda ay ku jiraan insha allah ilaahay baan ka rajeynaynaa annagana dadaal naga rabaa ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu nagu garabsiin doono shirkina saas ayuu ku furan yahay waxaan leenahay soo dhawaada ragga meesha yimid oo salaadiinta ah odayaasha dhaqanka ah iyo ulmaudiinka meesha iskugu yimid waxaan leenahay shirka sidaasaan ugu furnaado howsha sidaasaan ugu socoto ilaahay dartiis aan u shaqeeyaan oo aan ugu shaqeyno reer Jubbaland in ay gaaraan yoolkooda oo ah Jubbaland la wada leeyahay aan idna gaar lahayn inuu ilaahay gaarsiiyo ayaa yoolkeenu yahay إن شاء الله تعالى إلهنا وعن قاسين دونا وبالله توفيق. أدبو ما سني هاي كاسي وحوها وقاس أويش حسين هونيرو وقاس كجبوينكا بيلها جريروين إن شاء الله. عندنا وحنكو سود وينا يا وقاس أبوكر وقاس محمد وقاس كبيش إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. maanta ay tahay bisha afaraad 22 sanadka 2020 waxaa halkaan isku nimid shir wada tashi ah oo ka tashanayna arrimaha jubbooyinka maadaama hal sano jubbooyinka maamul ay yihiin oo maamul iska jiran maamulkii Axmedood meesha iska baxay weli maamul loo dhisan ummadina ay rafaasan tahay saas awgeeda waxaa isku nimid meeshaan beesha Jareerweyne iyo beesha Direed waxaan ka wada hadalnay si Jubbaland maamul ay u heli lahayd si Jubbaland dadkeeda gacanta isku qabsan lahayd
maadaama beeshan beeraha oo tiri badan oo degan ay yihiin marka waxaa go-aan asla gaarin inaan gacanta isqabsino inaan jubbaland laga midoobo in maamul laga dhiso oo wadajir ah marka saasaa ku tashina haddis ilaahay kaal naqdo hawshaan waa wadaynaa ilaa laga salgaaro waayo jubbaland kama tirsina jubbaland sida maamulyaal kale ma ahan sida waa mar hore dib ay u dhacday maamul oo waxaa ka jiri oo kalistari ah oo titotori ha ka jiri oo aan la doonin oo asi isdoorta ka jiri markii aan lahayna dhibaatada waa ka baxaysay markii oo nidaay markii aan lahaynana weli meesha wax ka jira malaha marka dowladda federaalka waxaan sheegaynaa in ummadda jubbaland ay baaba'day cagabaran ay gaartay wax lagu haayo ay jirin ummad ay baaba'day inaa il gaar loo yeeshto maamul ay u baahan taha daryeel ay u baahan taha ummadda gargaar ay u baahan taha in saan a lagu dayan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ogaas abuukar ogaas maxamed ah ogaaska beesha biimaal insha allah